carabay isna wuxuu ahaa gabayaa soomaaliyeed oo dhowr goor marxaladda gabowga wax ka tiriyey. salaan markay ciradii saabatay raggii ay isku da'aadda ahaayeen markay duul aakhira u bateen ee uu is arkay isagoo dhallinyaro ku dhex jira, markuu arkay isaga iyo wad inay kalama maarmaan yihiin, intaa oo idil markuu arkay ayuu u leexday dhanka cibaadaysiga iyo u tabaabushaysiga la kulanka eebbe. gabayadiisii mid ka mid ah oo waana ahaa wuuna ula jeeday cabdilaahi baashe nin la odhan jiray ayuu qayb ka mid ah kaga hadlay waxa uu gabowgu soo gaarsiiyey iyo waxa u eg. wuxuu yidhi, dhallinyaro cilmowga tashiga cara ka qaadaaya nin cibaaro badan lagu shubay oo caaqilaan ahaye calli yahay. ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaariye marka madaxuu cawskay dhigyo cigay lixaadkiiye cadcad waxaan lahaan jiray haddaan ciirayoo dhacaye casho noolba waxaan fiiriyaa curufadaydiiye raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawlka dibadeede calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanne qorraxdoo casar joogtaanahoo ciiri galabkiiye cimrigaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye sidaan cadadka biluhu u tirsaday waa cabsanayaaye maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqii dhigaye. filayo inaysan waayadaa ka fogayn ayuu haweenay guursaday. dabadeedna siday caadadu ahayd waxaa isagoo yaradoona u yimid seedigii oo ahaa 20 jir ay hawo adduun kolba dhan u wado. salaan isagoo ninkaa u boholo qodaya una dardaar warinaya ayuu gabiyey. wuxuuna gabaygii ku daray calaacal xagga gabowga ah oo aad loo wariyo loona yaqaan. gabaygii wada marin maynee waxaa ka mid ahaa, min 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo faray aqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaa dhigtoo laylyan baan ahay 12 baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar laxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubidaydu layl xalay maledin laadadiiya taahe waa taalan leemada indhaa aragu liitaaye liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleed. dhegaystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen. sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunyo tacab bay ahayd. haddiise raggaa la isbarbar dhigo qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiini turjubaano ayay noqon jireen. guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaaladii badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha mar ay dhamacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhuraan. haddaadse weli xusuusataan su-aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsanaa waayaha dalmareennadii hore ee soomaalida, tii afraad ee ugu dambaysay waatay ahayd qurbajoogyadii xilliyadaas suugaani ma ka hadhay? hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa? jawaabtu waa haa, inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaadhay ee teelteelka ahi aysan isu dhigmin. si kastaba ha ahaatee mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen. qaar maansada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday, iyo kuwo awal horeba iyaga oo curinteeda lagu yiqiin dibadaha u dhoofay. malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan allaha u naxariistay salaan carabay gabyaagii la odhan jiray oo ahaa nin ay sudcaaladiisu badnaayeen, nasasho oo idil ka hordega, marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen. ayuu salaan maalinta dambe
marka berbere ku soo xirtay ka soo degi jiray. haddiiba reerkiisii miyiga iyo afadiisii cawo dhooble kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray. kuma sinagaan jirina durbadiiba intuu ka jiciirto ayuu qaban jiray bad iyo biri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hoggaamiso. taasina wax lala yaabo ma aha, maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay, fadhigana looga run yahay. wuxuu ka mid ahaa da-dii ku maahmaahday xagla laaban xoole kuma yimaadaan, fadhi iyo fuudi cibeed laysku waah, ood kaa fogi kuma dhaxan tirto, iyo biyo sacabadaadaa looga dhargaa. hayntooduba ha yaraatee da-dii baryada iyo gacna hoorsiga iskala weynayd. sidaa daraaddeed salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halkudheg waxa u ahaa ragga socodku wow door. taasna isaga qudhiisa ayaa ku sheegay tuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood. su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay, maxay ahayd sababta gabayga uu tuducaasi ku jiro uu salaan u tiriyey? waxaa la yidhi wuxuu ula dan lahaa rag seediyaashiisa oo mar uu nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey, iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo. isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama u iman wax isaga iyo ina dad u qaybsama. dabadeedna markuu u dayriyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay, kor iyo hoosbana loo canaantay. waxaa lagu yidhi, oo salaanow, mar walba adoo faramaran haddaad soo noqonayso, haddii aadan waxbana dhaamin, maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista ah kugu wata? maad nala joogtid oo sida iyada oo kale reeraha isaga dhex dhagaatid. maalintaas ayuu tiriyey gabaygaa uu ku faahfaahiyey sodcaalladiisii qaarkood dhibihii uu kala kulmay. gabaygaas uu haddana kaga cudur daartay in xididka wax ka soo doontay aanu maantaa waxba u hidin karin. waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban farshaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey. waa tuduc ay dulucdiisu tahay dhib kastaa ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sodcaalku ay jiifka dhaamaan. waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon, iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse. waa jiifa buuri. bilowga qarnigii 20aad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay, gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii ingiriiska, talyaaniga, xabashida iyo soomaalidii iyaga garabka u ahayd. colaadaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay. rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaadhay, sidaasna qurbajoog ku noqday. waxaa ka mid ahaa abokor cawad bayle nin la odhan jiray oo kolba wuxuu markab ka dego mid kalena koraba ugu dambaystii england isisii taagay. magaalada cardiff ayuu sarka dhigay, halkaasoo uu ka qaban jiray shaqooyin kala kaanahoo mushaar fiicani uu ka soo geli jiray. maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh, asi yaro qaali ah. cuntadii markay dhammaysteen ayaa abokor lacagtii oo halgelin noqotay isagu bixiyey. dabadeedna inta isu bogay ayuu gebiyey, isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambaysay, isla markaasna liidaaya tii miyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo koray kuna soo barbaaray. dabadeedna isaga oo isula ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii ingiriiska ahaa ee baryaha cadan ka talinayay ayuu yidhi, geel iyo ninkii adhi dhaqda yay gaaja qabataaye geediga ha loo yaamiye, sida gabraareedee gini kuma qadeeyeen, haddaan gurada noor oole geedida horteed, daar cad bay gogoshu ii taale, garka waxaan u feedhaa sidii goondharka cadmeere. sidii dhici jirtay waayadaas ingiriisku soomaalidii uu gumaysanayey, wuxuu ku beer laxawsan jiray in isagu uu gacal u yahay cadowga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay sayid maxamed iyo daraawiishtii uu hogaaminayey.
dacaayaddaas ayuu dad aan yarayn ku hoday si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hor joogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan abokar cawad isaga oo arrintaa og ayuu england tegey wax yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday maalintaas ayuu ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin maalintaas bay soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen waatay ku maahmaaheen waxbadsa waxbeel bay leedahay dharaartii dambe goor lagu wada 1920 ayaa abokar oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo wakhti gaaban lacag badan uu ku yeesho markaas buu sameeyey lacag been abuura oo giniga ingiriiska uu u ekaysiiyey taasoo inta lagu qabtay uu xabsiga ku galay kolkaabuu maalin maalmaha ka mida isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayadii ingiriiska ee ahayd in cadowgoodu sayidka yahay isaguse uu xabiibkood yahay dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu sayid maxamed ugu calaacalayo isla markaasna uu ku carabaabayo hadduu wadaadkii noolaan lahaa inaanu xabsiga ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha gale wuxuu yidhi england waxaan ka ciilbixi lahaa ina caroo noole ina caro waa sayidka ayuu ula jeedaayo uu ugu abtirinayo hooyadiis caraseed magan england waxaan ka ciilbixi lahaa ina caroo noole isagaa cirkaa uga dhignaa calanka king george cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos maray goorteed maansayahanada waaweyn waxaa lagu qiimayn jiray gabayo dhaxalgal ah oo marar kala duwan ay tiriyeen midbana uu ujeeddo gaara ku saabsan yahay hase ahaatee waxaa haddana ku walba si gaara loogu sii maamuusi jiray gabay qura oo bulshadu ay u wada bogto hadduu nool yahay iyo hadduu goostayba gabay afka lagu hayo gabay maqaladiisa cirka ku shareera ugu dambaystana inta geyiga ku wada fila lagu barto maansayahanadaas waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii reer ceerigaabo xaaji aadan axmed oo afqallooc ku magac dheeraa kaasoo ay gabayadiisu u badnaayeen dhaliisha habkii maaraynta howlaha xukuumadihii soomaaliya ee lixdanadii qarnigii 20aad maansooyinkii haddaba uu xaajigu tiriyey waxaa malahayga ugu caansan isagana aada u soo caan bixiyey gabaygii tabaaraha wakhtiga la baxay ee qofkii goobjoog ahaa xusuusin kara kii aan ahaynna wax badan ka bari kara musuq maasuqii iyo daacaddaradii dadweynuhu ka sheegan jiray ee madaxdii waayadaas lagu hiifi jiray waa gabay dheeroo fariimaha uu sido aan daqiiqada tirsan lagu soo koobi karin sidaa darteed bay ila noqotay tuduc tuura gooye ah inaan idinka soo tabiyo si aydin u garataan bilowgiiba dowladnimadii soomaaliyeed cudurradii ay la hinqan weyday ee ugu dambaystiina salka dhulka ugu dhuftay qayb ka mid ah ararta gabaygaas ayuu xaaji aadan ku xusayaa dhowr ceebood oo jiritaanka dowladnimada u daran ha yeeshee maamulayaashii dalku iyaga oo caddaan u arkaya ay iska indhatiri jireen sida hooshka hantida guud xeerarka dalka u yaal oo raacistooda aan dan laga gelin kala dambayn la-aan hay-adaha xukuumadda lagu habaaray oo midna aysan midda kale tixgelin aqoonta iyo qofkeeda oo la dafiro aqoon darrada oo la koolkooliyo xafiisyada dowladda kuwa ugu mudan oo rag aan mudnayn loo shuumo mid la yaqaan inuu yahay tuug mariyey oo madoobeeyey oo furayaasha khasnadaha qaarkood la guddoonsiiyo wuxuu yidhi dhibta timi jamhuuriyadda oo tahan la boobaayo iskaa wax u tabciya khaa'inimo la isku taageeriye qawaaniin u taaliyo nidaam taxad ma yeelaane sida reer tafarre amar ma jiro laysku taabaco warqad tenanku teebku ugu qoray kaabul kugu tuuriye waashbaan kolay tahay ninkii taabay meel dheregiyo taaj madaxa awr loo gashaa waa tusma habaabee tuug daalina iyo caasi baa tamar u yeesheene tibi baad u dhiibteen nimaan tuna ka sheegayna toorey
af badan ba u xidheen taarig xoogsaday markuu bilaabo ayuu xaajigu si farsaxannimo leh wuxuu inoogu sawirayaa muuqaal ku saabsan xidhiirkii quursigu astaanta u ahaa ee ka dhexeeyay saraakiishii sarsare ee dowladda iyo dadweynaha kolkaas buu ina tusayaa sarkaal kibirsan oo fadhiya xafiisyadii uu gumaysigu ka tegay midkood iyo qof Soomaali ah oo ay dani ka soo gashay wuxuu haddana inoo sawirayaa nin mushaarkiisu 200 oo shilin oo qura yahay haddana hantiya dhul iyo guryo badan isaga oo hanti milyan aan lagu ogeyn sidoo kale ayuu haddana inoogu sawirayaa sidii waaxda caafimaadka u dhaqmi jirtay markii qof xanuunsan oo takhtar u baahan looga qaylo keeno iyaga oo aan u gurman jirin ku been hawaasi jiray sidaa ii darteed inaanay bukaankaas wax u qaban karin waa sawir aan waxba ka jirin baabuurta dowladda iyo shidaalkaba siduu xaajigu sarbeebayo habeenkii ayaa lagu xodxodo tegi jiray oo xaafadaha dhexdooda lagu taxaashi jiray saddexdaas muuqaal isaga oo ina tusaya ayuu yidhi tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaanay adigoo waxuun tabanaya oo tegay halkuu joogo kolkuu sida libaax raqi u taal qoorta kor u taago oo tayga luquntiisa suran taabto faraqiisa oo inaad addoonkiisa tahay taana la ahaatay oo aan dhaqaalada tixgelin waajibkana tuuray iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego 200 nin maahiyadi tahay tirada loo dhiibo oo 10 baloor jeexday oo tumanayoo kayfa oo biilka gini tuurayoo tolaya layloonka aan tacabo baadiya lahayn tuludi waa maale iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego danta togan batroolkeenna waa laga tashiilaaye 7 mayl nin joogo oo bukaan taladayoo liita oo inuu xakiimka u tago iyo taakuro u baahan inkastuu tawaawaco ninkii hadalka soo tuuray misna tamasle iyo xaafaddaa lagu tagayaaye iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee gabaygaa ku jira 4 tuduc oo uu xaajigu kaga hadlay hay-adaha dowladda qaarkood dhibihii markaas laga sheeganayay sida maxkamadihii dalka ee laaluushka lagu maamuli jiray macallinkii anshaxa daraa ee degmooyinka middood inta loo bedelo habdhaqankiisa siloon ay ardada yaryari ka baran jirtay carre edeg ninkii cilmiga ugu xeraystay oo soo noqday isaga oo ku xulluban aqoon uu rabo inuu dadka iyo dalka wax ugu qabto asii jaahil awood lehi uu ka hortaagan yahay sarkaalkii maamulka dekedda lagu aaminay ee ganacsadihii badeecadaha ka soo degsaday intuu hoosta kala heshiiyey safarkii oo dhan dibadda ugu saaray iyada oo shilin cashuura aan dowladda loo shubin 4 arrimood oo ruuxii xilkasiya ay tahay inuu ka murugoodo ayuu xaaji aadan wuxuu ku yidhi dembi laguma soo taago nimay tiisu kaafido tabartiisu miday gaabato oo tukoonaya goortaad maxkamadaha tagto yaa tacajabaysaa ee taminkeeda xaajada ninkii taabi kari waaya inkastuu xaq taabila wato iyo marag cadoo taagan ama uu xujada toosiyo oo looyarku istiilo gartu dooda kuuguma tami ee taagtu waa lacaga iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego jaamacad nin tegey oo digriituu la yami haysta oo inuu dalkii wax u taro iyo tacabo doonaya oo taana loo baahan yahay joogtan sida joogta oo jaahil tigin adag dhidbaday taqadum kuu diiday oo reerkii tagi waayey oo camal la-aan taagan iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye tu kaloo ka daran baa jirtee taana balan sheego ninkii taan adduun soo rogay iyo kii ka tirinayey oo 10 kun oo shay habeentuu holla-aan qaaday oo laysu tabiyey aan cashuur buuggii lagu taaban iyana waa tabaaraha waktiga taynu aragnaaye 2 tuduc ee gabayga ugu dambeeya ayaad moodaa inuu xaajigu kaga jawaabayo su-aal uu filayay inay dadweynaha uga iman karayso taasoo ah waxaas oo tabaaro ah maxay madaxda sare ee dalku wax uga qaban weyday markaas buu isaga oo gabaygiina soo gabagabaynaya wuxuu yidhi haddaad adigu tuur leedahay
iyo tootidiga qaallo mid kaleeto inaad toosisaa waa tu aan dhicine waxaa khaayinada looga tegay tacabadii boobay ninba qoon ku taal buu ka baqay inay ka taabtaane haddaanse tiriyo waxa aynu nahay waan tawahayaaye taariikhda weli sooma marin teenan oo kale ee tiihii israa'iil helay bay tani sallowdaaye anoon boogta wada taawan oo idin tusaaleeyey oo aan tambiih iyo islaax taana uga jeedo waa taaraan boosta ugu riday ee soobaha u tago dhowra laga garan karo wuxuu xaaji aadan gabaygaas ceerigaabo uga soo diray cabdulqaadir maxamed aadan oo sooba loo yiqiin xilligaasna ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya wuxuu ahaa 1966kii markuu xamar soo gaaray gabay aad loo tamadin jiray makhaayadaha magaalada tii laga saaran